السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Faculty of Health Science marka koowaad wuxuu qaybsamaa 4 qaybood oo kala ah public health oo lagu dhigto siyaabaha looga hortago xanuunada baadhista markay xanuunadu dhacaan iyo waxa weeyaan xanuunada bulshada ku dhex faafa siyaabooyinka loo maamulo ama controlling loogu sameeyo. qaybta labaad oo ah human nutrition waxa lagu dhigtaa isna nafaqeynta bini'aadamka tusaale ahaan ciyaalka yar oo kale marka nafaqo darro ku dhacdo sidee baa loo sameeyaa waxa weeyaan nafaqo loogu sameeyaa hooyooyinka oo kale nafaqadooda iyo bulshada dhamaanteed. qaybta saddexaad oo ah shaybaarka ama medical laboratory isagoo waxa lagu dhigtaa usually marka dhakhtarkii uu soo diro qofkii shaybaar in loo sameeyo qofkii waxa weeyaan shaybaarkii oo qaybihii kala duwanaa haday tahay maxaa la weeyaan dhiigi haday tahay urine ama kaadida stoolka iyo waxyaabaha la mid ah. qaybta u dambaysa oo ah isna ama nursing ah isna waxa weeyaan waxyaabihii marka dhakhtarka qofkii nursing ka caawinayay jaamacaddu marka usually waxa practical ka ku bixisaa dhakhtarada kala duwan ee magaalada hadana ugu horeeyay dhakhtarka weyn ee magaalada Hargeysa. shahaadadeeduna waxa weeyaan shahaado accredited ah ama muctarif ah oo la ictiraafsan yahay.